rabaday kariim daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay nabad ku afura waa barnaamijkeeni hoo hadiyad iyo weliba qayb kaloo cusub waynu bixi doonaa maanta waxaanaynu tegi doonaa xaafadda kilalka halkaasi su-aalaha kusoo weydiin doonaa intii dad garatana abaalmarinaha aan kusoo siin doonaa barnaamijka waxaa maalgeliyey adeeg organic market iyo weliba astaan kiibal daawasho wacan رمضان كريم كسو دو برامجكو هديد مقعاقا يد نوغو بلعبي دونتا معلم محمد حرس ورمضان كو قيب كشي برامج سنو كلا سؤالا مانتا كورس إن شاء الله إناد قولي ستاري تشين دونا داد قريتها بالمربان كسين دونا وحاد شيق دونتا سؤاشا إن إمسا تشير با قرآن كالوغو شيغي سجودة تروي سجودة توشا كمايو كمايو ما اسكودي كرسان ايه مايو وما سنتي مر kale inaad garataan rajeynaya Ramadan Kareem walaal ku soo dhow barnaamijku aadiyad magacaaga noogu bilaabi doontaa waan dhowhay walaal magacaygu waa Xaliimo Jaamac Xaliimo su'aal baan ku weydiin doonaa insha Allah dad garataa wal marin ku siin doonaa waxaad noo sheegi doontaa hadalka amba ereyga deelqaaf micnihiisa deelqaaf micnaha waa wax meel kala tagay deelqaaf ha ma garanay waa maasan tahay gooreen waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka hadiyad magacaaga aad noogu bilaabi doontaa xililool Cabdi Maxamed Cabdi hormad uga qayb gashay Cabdi Ibrahim Saala may kama qayb gal maanta ay goor mid guulaysataa rajeynaya insha Allah su'aal baan ku weydiin doonaa dad garataa wal marmaan ku siin doonaa waxaad sheegi doontaa ereyga deelqaaf macnihiisu ma sheegi doontaa ereyga deelqaaf waa wax dhiba wala qof laga qaldan yahay deelqaaf qof ama qof ku gafeeya ama waxaan ku gafeeyo deelqaaf waxaan ku haboonayn sameynay iminkaad asiibtay jawaabtii aan doonayay waad garatay insha Allah waxaan ku siin doonaa abaalmarintii barnaamijka loogu talagalay waad ku celcelisay macnayo badan baad u samaysay aad baad maas abaalmarintii barnaamijka loogu talagalay baan ku guddoonsiin doonaa waxaan ugu talagashay adeeg organic market iyo weliba astaan cable aad baad walaal u mahadsantihiin aad baan ku soo dhow barnaamijka hadiyad magacaaga aad noogu bilaabi doontaa nimcaada barnaamij su'aalasan oo kale la isku weydiinay weli ma ka qayb gashay may insha Allah inaad guulaysataa rajeynaya su-aasha waxay noqon doontaa waxaad sheegtaa xayawaanka haraadka oo adkeysan kara intuu geelu u adkeysan kara in ka badan xayawaanka haraadka oo adkeysan kara intuu geelu u adkeysan kara in ka badan waxa weeye dawacada iyagaa ka mid ah waraabaha iyo waa maasanta waad isku dayday laakiin jawaabtii saxda ahayd weli kaamaan helin waad mahadsan tahay ku soo dhow barnaamijka hadiyad magacaageed noogu bilaabi doontaa magacaygu astaada barwaan waan ku dhowey astaan hore maad uga qayb gashay barnaamij sidan ugu horeysay insha Allah inaad guulaysataa rajeynaya waxaad sheegtaa quraanka inta jeer ee sujuudda lagu sheegay inta jeer sujuudda lagu sheegay waxa lagu sheegay 4 jeer chance kalan ku siinaya mar kale sidii waxa lagu sheegay 20 jeer markii lagu sheegay waagaag dhowr jeer baa isku dayday laakiin maad sixin insha Allah inaad mar kale saxdaan rajeynaya ku soo dhow barnaamijka hadiyad magacaaga noogu bilaabi doontaa Sahra Ismaaciil Abukor hormad uga qayb gashay maamul su'aalo sidan maya insha Allah waxaan rajeynayaa inaad garatiin su-aashu waxay noqon doontaa maama waxaa sheegtaa quraanka inta jeer ee sujuudda lagu sheegay quraanka inta jeer lagu sheegay sujuudda lagu sheegay dee waxa weeyaan inta jeer sujuudda lagu sheegay quraanka sujuudda marka la tukanayo lagu sheegay dee soo maaha waxa weeyaan 3 jeer mar kale ku waxa weeyaan waa 5 amba 6 waa hagaag maama dhowr jeer baad isku dayday laakiin maad sixin insha Allah inaad mar kale saxda rajeynaya ku soo dhow barnaamijka hadiyad magacaaga aad noogu bilaabi doontaa Farxiyo Cabdi Faarax bismillaah hore maad uga qayb gashay barnaamij su'aalaha maya ma gelin maanta ka hor insha Allah inaad guulaysataa rajeynaya waxaan ku weydiin doonaa waxaa sheegtaa xayawaanka geela kasii adkaysi badan haraadka dhanka haraadka
geela kasii adkaysi badan ku kasii adkaysi badan baa jira ka biyo cab badan anuu garamaya geela midaan ahay waad mahadsantahay insha allah waad mahadsantahay mar kale isku dayi ugu horreyn kusoo dhawo barnaamijkaadii magacaaga noogu bilaabi doonta aamina horemaad uga qayb gashay barnaamijka may haa waxaad sheegi doontaa waxaad sheegtaa xayawaanka geela kasii adkaysi badan dhanka haraadka dee muscagaleyda mise to wax weeyaan diinka mar kalead ku ceshan doontaa diinka diin halkaa muxuu ahaa waa su-aal kale iga dhigda waaye ii bedel kasta hal su-aal baan weydiinaynay marka insha allah tan baa kugu saagay dee marka xayawaanka waxa weeyaan waa diinka ama waa baashan ka adkaysiga badan la geela waayo isagu wuxuu koraabaa lagu leeyahay biyaha uma baahdo ilaa iyo waqtiga maxay hayteen uma baahdo biyaha ilaa iyo roobku da'ayo waxaanu galaa dhirta marka roobku duunbu soo baxaa waa isaga unde may waad mahadsantahay waad istijaabisay waad isku dayday laakiin maad sixin waxaa jira xayawaan kaloo kasii adkaysi badan ilaa diinka faaduma su-aal baan ku weydiin doonaa insha allah hadaad garataa abaalmarin baan ku siin doonaa hore maad uga qayb gashay barnaamij sidan oo kale su-aalaha markii kuugu horeysay insha allah inaad guulaysataa rajeynaya waxaad sheegtaa xayawaanka saddexda qalbi leh xayawaanka saddexda qalbi leh su-aasha haddaan isku dayo waa casaabadeeda casaabadeeda miyaad u malaynaysaa mise waad hubtaa waa u malaynayaa waa markii ugu dambeysay haddaad bedelanaysid iyo haddii aad ku adkaysanaysid labadaba waa ku adkaysanayaa waad ku adkaysanaysaa waa markii ugu dambeysay waad ku adkaysanaysaa waa hagaag waad ku guulaysatay su-aasha jawaabteeda waad saxday waxaanaan ku guddoonsiin doonaa hadiyadii loogu talagalay barnaamijka ee ugu talagalay adeeg organic market iyo weliba astaan cable walaal waad inaad naga guddoontaa rajaynayaa waxaananu ku leenahay hambalyo waa mahadsantii walaal waan kusoo dhaweynayaa barnaamijku hadiyad kusoo dhawo magacaaga ayaad noogu bilaabi doontaa walaa aad iyo aad baan ugu dhawaay aad baa mahadsantii magacaygu waa Rooda Xasan Maxamed maad uga qayb gashay barnaamijka ayuga maan qayb galin walaa markii insha allah inaad garatid baa rajayn waxaad sheegtaa walaalo su-aasha waxay noqon doontaa waxaad sheegtaa afartii khulifada kadib kumuu ahaa madaxweynihii muslimiinta ee loodhan jiray waxa uu shaneeyey khulifadii wallaahi isku daygaygii cumar bin khadaab baan malaynaya cumar bin khadaab waad mahadsan tahay waad istijaabisay laakiin maad sixin kusoo dhawo barnaamijku hadiyad walaal magacaagaad noogu bilaabi doontaa walaal magacaygu waxaa la idhahdaa maxamed cabdirasaaq yuusuf oo ku dhawey aad iyo aad hore maad uga qayb gashay barnaamij su-aalaha wallaahi may barnaamijyo noocan kama qayb galin hore insha allah inaad guulaysataa rajaynayaa su-aashan ku weydiin doonaa waxa weeyaan kubadda koleyga waxaan malaynayaa inta badan inaad kubadaha daawatid waxaan rajaynayaa inaad garatid su-aashana kubadda koleyga koox kasta imse ciyaaryahaan bay ka kooban tahay koox kasta waxaan filayaa wallaahi 5 ciyaaryahan meelaha ma kooxda gebigeeda mise inta ciyaaraysa inta ciyaarta ku jirta waa 5 ciyaaryahan maad hubtaa saas ahaa miyaad ciyaartaa mise oo daawataa wallaahi may marmar xitaa inaan timacada ku soo ciyaaro yar dhacda laakiin saa uma huwa 5 ciyaaryahan ma filayaa waad mahadsan tahay waad garatay jawaabtaas abaalmarintii barnaamijka loogu talagalay ay ugu talagaleen astaan cable iyo weliba adeeg organic market baan ku guddoonsiin doonaa walaalo waatan hadiyadii inaad naga guddoontaan rajaynayaa walaal aad iyo aad baad mahadsantihiin barnaamijkan aad baan soo dhaweynaya rabadaan kariim walaal kusoo dhawo barnaamijku hadiyad magacaageed noogu bilaabi doontaa waan dhowahay walaal magacaygu maariya mariya barnaamijsanoo kala su-aala laisku weydiinayay ma ka qayb gashay haa in badan ka qayb gala miyaad ku guulaysatay baa la odhan karaa mise mararka qaar aad guuli daraysatay baa jirto su-aalaha ka jawaabi kari weyday haa mararka qaar baa jirteen guul daraysta waa hagaag waa mahadsan tahay su-aal baan ku weydiin doonaa insha allah hadaad garitaa abaalmarin baan ku siin doonaa su-aashan ku weydiin doonaa waxa weeyaan waxaad sheegtaa imse jeer ayaa sujuudda qur-aanka lagu sheegay imse jeer ayaa sujuudda qur-aanka lagu sheegay sujuudda haddaan isku dayo 14 mar jaanis kalaan ku siinayaa marka 15 miyaad ku adkaysanaysaa markaas haa waan ku adkaystay waxaan u malaynayaa inaad ka naxday su-aashaas markii aan ku weydiiyey waayo waad garanaysa aad garanaysaad markii dambe uga jawaabtay may su-aashan baad igaga naxays waan garan leh laakiin waa hagaag maariya abaalmarintii barnaamijka loogu talagalay ayaanu ku guddoonsiin doonaa ay ugu talagaleen adeeg organic market iyo weliba astaan cable waa hagaag maariya abaalmarintii waatan barnaamijka loogu talagalay hambalya ayaanu ku leenahay walaal kusoo dhawow barnaamijku hadiyad magacaagaad noogu bilaabi doontaa magacaygu waxa weye cabdilaahi cumar shaciib
horemaad uga qayb gashay cabdilaahi barnaamij su'aalaha maanta igu horeysaa su-aashan ku weydiin doonaa waxay noqon doontaa waxaad sheegtaa afartii khulafada kadib kumuu ahaa madaxweynihii muslimiinta ee laguna aaneysi jiray wuxuu bedeli doonaa amba uu shanayn doonaa khulafadii magaciisu maad sheegi doontaa mucaawiya waa hagaag waad tijaabisay laakiin maad sixin insha alla mar kalena saxdaan rajaynayaa rabadaan kariim kusoo dhawo walaal barnaamijku hadiyad magacaageed noogu bilaabi doontaa waa dhowahay magacaygu waa xafse aadan cali xafse ay weli barnaamij sanoo kale su-aalaama ka qayb gashay may maanta iigu horeysaa inaad guulaysataa rajaynayaa su-aal baan ku weydiin doonaa su-aasha dad garitaa baan marin baan ku siin doonaa wala su-aashan ku weydiin doonaa waxay noqonaysaa waxaa sheegtaa afartii khulifada kadib kuma ayuu ahaa madaxweynihii la odhan jiray waxa uu shaneeyey khulifadii magaciisu maad markaa noo sheegi doontaa su-aasha haddaa isku dayo cumar bin khadaab jaanis kalaan ku siinayaa cumar bin cabdicasiis miyaad hubtaa mise waad u malaynaysaa may waa u malaynaya miyaad u malaynaysaa jaaniskii ugu dambeeyey miyaad beddelaysaa mise waad ku adkaysanaysaa waan ku adkaysanaya waa hagaag xabsaay waad saxday su-aasha jawaabteedii waxaan rajaynayaa inaad adkaysigaagaas wax badan buu kuu suurtageliya inaad ku adkaysato marka waxaan kugu guddoonsiin doonaa hadiyaddii loogu talagalay barnaamijka ay ugu talagaleen adeeg organic market iyo weliba astaan cable walaal waa tan hadiyaddii loogu talagalay barnaamijka ay ugu talagaleen adeeg organic market iyo weliba astaan cable hambali ayaanu ku leenahay thank you waa mahadsantihiin adeeg organic iyo astaan tv ka faa'iidaysa macmil qiimo dhimista ballaadhan ee lagu sameeyey bisha barakaysan ee ramadaan ku iibso rasiifarka astaan $19 oo keliya